salaan diiran dhegayste ku soo dhowow rawaayadeenna taxanaha xiisaha leh ee sahanka nolosha waxaan kuu haynaa xalqad cajiib ah maanta balse intaana u gudagelin aan soo koobna waxyaabihii dhacay inta lagu guda jiray xalqadii la soo dhaafay mooge wuxuu ku xidhay shuruudo haddii qoyska shiikha ay rabaan inuu ka caawiyo $20,000 ee madax furashada ah talow xaawakiin ma ku dhici doontaa dawanka cadaadiska lagu saaraya xalqadani duuliye cali iyo maryam waxay rabaan inay isguursadaan talow beesha duuliye cali muu oggolaan doonaa inuu guursado gabarh ka soo jeeda qabiilka la hebsoco kala soco halkan sahanka nolosha alla ayaa mahad iska leh oo na soo nabad celiyey oo na soo dhaafiyey biyahaasi soo ma faraxsanid ma faraxsanid saaxiib sababtoo ah wax lacag oo nala siinaya ma jiraan maadaama howlgalkeennii uu fashilmay maxaad ka waddaa lacag nala siin mayo 3 maalmood ugu dambaysay waa annagii shaqaynaynay soo adigii ma tegaya 3 maalmoodee u dambaysay sidaas oo ay tahay waan shaqaynay waxaa rabtama markaana ii sheegay markabku waan aragnay doontani yar waan isku daynay inaan ku bursanno laakiin waa noo suurtoobi weyd waa qaban weynay soo maaha alaabtii saarnaydna maynaan dhicin maxaa howl ahoon qabannay haddaba sidee u qaban karnay markabkaasi weyn annagu oo haysanna doontani yar mudanuhu saaxiib waxaasi ma qoraayo mana fahmaayo yaah waa in lacagteeda laysiiya aniga khasaare ujoog ayaa tahay saaxiib ee shaqada soo socota sugo marka maxaad shaqadaani u qabataan haddii guusheeda ay aad u yar tahay joofle waxaan kuu sheegaa saaxiib nolosha inaad caqli isticmaashid ayaa loo baahan yahay saaxiib aniga hadda howlgalkan aad arkaysid kormeere ayaan kacay saaxiib taa macnaheedu waxaa weeye aniga lacag ayaa la isiinayaa sida mudanaha oo kale howlgalka ama ha lagu guulaysto ama ayaan lagu guulaysan ani lacagteeda bannaankay taallaa laakiin waxa ay tidhi lacagna la siin mayo soo ma aha hadda markaa waxaa rabtaan kuu sheega inaad maqasho soo maaha sidaani caddaalad ma aha mudanuhu waa inuu lacagteeda isiiyaa nasiib wacan saaxiib aday kuu taallaa waxaa yeelaysa hooyo sokor badan ayaad shaaxa ku darsatay sokorta uma wanaagsana caafimaadkaaga haa marka hadda waxaad ka fikiraysaa miya caafimaadkayga maxaad ka waddaa hooyo haddii aad rabto inaan ogaado inaad iga taxadiraysid xaawakiin waa inaad aqbashaa mooga waa inaad aqbashaa mooga kuma noqonayo lamana noolaanayo waa yahay marka iska keeddaa aan sokortayda iska cuno oo aan dhinto anigoo weliba da'yar hooyo waxaa jira siyaabo kale oo lacagta loo heli karo mooga uma baahnin xaawakiin bal isdhegayso waxa aad ka hadlaysid xaggeen ka heli karaa $20,000 hadda oo aan hadlayna ayaan raadinteeda ku maqanahay oo aan uruurinayay xaawakiin baqaylnimadaada sii wad aabbaha wuu dhiman doonaa walaalkaana wuu dhiman doonaa anna waan dhimanayaa ee ninkaas aad jeceshahay ee dirir ah iskala joog iskala faraxsanow ma garatay mooga ayaa haya lacagta aan u baahannahay runta markaan kuu sheego haddaad wax maqlayso xaawakiin hooyo caddaalad ma taqaanid adiga maxaa naftayda ugu cinqaabaysaa qaladka uu daahir galay awgiis waad ku saxan tahay xaawakiin naftaada waxba ha ciqaabin laakiin waxaan kuu sheegayaa haddii aynan lacagtaas helin aabbahaa wuu dhiman doonaa marka aabbahaa ciqaabta ha maree iska dhaaf suhayb sii ilaali waan soo laabanaya hooyo waxaan filayaa inaad dhanka mooga aadi doontid suhayb yar ayeeyo oohinta jooji hooyo way soo laabanaysaaye waxaan filayaa inay aabbahaa u tagto waayo aabbahaa waa nin deeqsi ah oo gacan furan oo aad iyo aad u fiican laakiin hooyadaaba aad u madax adag oo aan war maqlaynin waxaan filayaa inay soo miirsan doonto xaawakiin waad ku mahadsan tahay cuntada cali adigaan badan qaali waxaan rajaynayaa mar dhow inaan kugu yeeri doono xaaskayga haddii ay suuragal noqoto marina waxaan filayaa in aadan maqaayaddan ii keenin si aad ii tusto nooca cunto ee aad hadhow rabto in aan kuu kariyo
yaa og hadda maryanay laakiin sidee doontaba ha noqotee aniga xitaa haddii aad kob ii karisid waan cuni karaa waayo aad baan kuu jecelahay maryan waad waalan tahay niyahow wax kale ma qabtid oo aan waali ka ahayn adiga maryama xabiibti gacmaha way geerayaan maxaa dhacay ها مية قريريان قعمهيga aniga uma dareemayna inay qariirayaan xabiibti isdaji wax kasta way hagaagayaan waalidiinteennuna wax dhiba kuma qabi doonaan inaan labadeenu isguursanno oo aan qoysi galayno ma hubtaa midaas waxaan ka wadaa aniga waxaan ka soo jeedaa qoys la heeb sooco adigana waxaad ka soo jeedaa qabiil aad u weyn sharafay anigu waxaas waxba uma arko wax waliba waxaa igaga muhiimsan jaceylkan adiga kuu qabo tan kaliya aan ordayana waxay tahay inaad xaaskayga noqoto oo aan guriga galno qoyskiinana ka waran xaggooda run ahaantii anigu waxaan aaminsanahay qoyskaygu inay ani ila mid yihiin waayo aabbahay iyo hooyaday aad bay ii jecel yihiin waxaan anigu jecelahayna kama soo horjeesan doonaan wax walbay noqdaan sida aad jeceshahay allaha kuu rumeeyo waan ku saxanahay middaas wax dhexdeena soo geli karaana ma jirto qaali inta ereyga xaas aan ku dhawaaqin ayaan xaaskayga kaa dhigayaa xaas waa inaan hadda aabbahay u tagaa oo aan kala hadlaa wax badan oo ku saabsan sidii aan adiga aan isu guursan lahayn cuntadaada sii dhammaysa qaali lacagtana mar hor ayaan bixiyey ogow aabbahay ayaana aadayaa si aan uga dhaadhiciyo waxyaabaha dhexdeenna ah taleefankaan ha ka dheereen agtaada oo waan kaa soo wacayaa si aan wax kaaga sheego wixii aan ku wada hadalna aniga aabbahay waayahay cali hadhow baan is arkaynaa qaalidaydii nabaday joofle sidee tahay waan fiicnahay warfaayo biyaha waad ku soo dhibtota ayaan filayaa joofle sidee ku ogaataniyo biyaha inaan jiray adeer meeshaan fartii dhaqaaqdaba waa laga warhayaa qof kastana waannu la soconnaa dhaqdhaqaaqiisa waan arkaa marka lacag ma lagu siiyey sabab ma waxaad rabtaan adiga iyo saaxiibkaagan aamusnaha inaad iga dhacdaan lacagta aamusana ma aha murqihiisa ayaa hadaljeedinta qaabilsan wax lacaga ma hayo anigu waan ogahay oo wax lacag ah lagu siin maayo weligaa haa hadda unbaa arrinkaasi ogaaday laakiin mudanaha ayaan la soo hadlayaa heshiis ayaan galnay marku waa inuu lacag isiiyaa waxaad marka ka soo hesho mudanahaas asaga ah waxba ha iga siin aniga waxaad noqonaysaa qofkii ugu horreeyey ee lacag ku hela howlgal fashilmay horta meeqa howlgal ayaa lagu guulaystaa 30kiiba hal ayaa lagu guulaystaa oo badanaa way fashilmaan howlgalladu maxaa marka haddii ay sidaas tahay maxaan biyaha ka doonay niyahow inaan ogahay ayaa fiicnaan lahayd shallaytadu gadaal ayay ka timaadaa badanaa waxaan ku siin karaa fikir fiican si aad shallayto dambe isaga ilaalisid haddii uu fikirkaasu yahay inaan biyaha ku laabto haba ka yaabin inaan kaa yeelo ma aha waa si fudud oo aad lacag ku samayn karto waan ku dhegaysanayaaye iwad intii aad adigu sugi lahayd inuu madaxa burcadbadeedku lacag ku siiyo maba dhici doontee waxaa kuu fiicnaan lahayd inaad qoriga aad haysatid aad iska iibsato oo aad meeshaas lacag ka raadisid waxaad rabtaa inaan qoriga mudanaha iibiyo caadiyan jooflow lacag ayaad ku leedahay mudanaha marka taadii ayaad u qaadanaysaa hantida mudanaha ee aad gadanaysid ma qorigan ayaa $800 laiga siin karaa $400 ayuu qorigan joogaa waxaana fiicnaan lahayd inaan aniga xataa sidaanoo kale sameeyo intaan mudanaha burcadbadeedda u daba ordi lahayn lacag aan ku leenay waah waxaan u malaynayaa inuu fikir fiican yahay wallaahi waa kan ugu fiican aniguna waan kaa caawin karaa arrinta ayada ah oo hadda ayaan qoriga $300 kaa siisan karaa dee waxaad tiri $400 baan kaa siinayaa haa laakiin aniga ayaa 300 ku iibsanaya kadibna 400 ayaan sii siisanayaa aniga lafteyda aan suuqa aado aan $400 soo siisto waxaa laga yaabaa inaan $500 ku soo hele waryaa horteeda ka leexo oo ma waxaad u malaynaysa inaan fikir bilaasha ku siinayo qorigayga warna sii kale haddii kale wallaahi waad ka shallaayi doontaa waa yahay $300 isii $300 un baan qaadanayaa war ka tag meesha wax aan ku siinayna ma jiraane mudanaha ayaa hortaa lacag ku lahaa waryaa marka lacagtayda ayaan u qaadanaya qorigan adiga horta ka raadsa lacagta asaga hay isi waay haddaad lacag siina qorigaysi si qorigay kusiin maayo waryaa qoriga lacag kusiin maayo qoriga ninkuu sidaa warsankaagu dhufatay dhiig baa iga socdaa war leed kala daal muxuu qoriga isku dhejinayaa sida waryaa ka qaad qoriga magacayga meelna ha ku soo qaadin joofle haddaad og tahay waxa kuu roon wallaahi bilaahi haddii kale 5 xabadood ayaan beerka kaa gelinaya aabe ma fiican tahay aabe waan ku baryaa hibo halkaan ma joogi lahayn haddii aanan baahi haynin wax lacag ah ma haya xaawakiin intaas ila fahan walaal waan ogahay inaadan hayn
balse soo qaraabadaada kama soo qaadi kartid qurbaha kuu jirto. iyaga laftoodu nolosha ayay la daalaadhacayaan. qofna ma hayo 20,000 oo dollar oo ku sii daayo qof tahriibay. qaraabadaada dayn ma ii weydiin kartaa? aniga ayaa bixin doonee. heshiis ayaan kala saxiixan karnaa hibo. yurub uma barwaaqo badnaa sida ay dadku u malaynayaanna ma aha. dadka intooda badani biilka ayay ka badin la'yihiin. marka qof aysan aqoon u malayn maayo inay dayn u raadin karaan, mana dhici karto. laakiin waa taqaannaa daahir, waad og tahay in uu qalad galay, balse aan fursad u siinno si uu guriga dib ugu soo laabto, si uu cafis uu nooga dalbado annaga oo dhan. qalabkaygan muusigada lacag aad u yar ayuu joogaa. markii ay hooyadaa halkan iigu timid oo ay igu dhibtay inaan qalabkan iibiyo, ayaan dadka soo weyddiiyey. waxaan ogaaday in uu qiimo aad u yar, macnaha qiimo tuuris ah, uu ka joogo. marka waxba goyn maayo. kuma lihi qalabkaaga muusigga iibi, waa nolol maalmeedkaagii. waxaan kaa rabaa inaad qaraabadaada deen yar weyddiisid. ganacsigayga kalluunka ayaan kaa siin doonaa, wayna ka soo baxaysaa lacagtaasi. ma aqaan, waan isku dayayaa, laakiin ma ogi inta qof ee diyaarka u ah inay caawiyaan ninkii iga dhaqaajiyey hal maalin ka hor arooskayga. ugu yaraan isku day inaad ii ballanqaadi kartid. waa ballan xaawakiin. mahadsanid, waa inaa hadhow. see tahay aabbe? haa, soo gal wiilkaygii. aad ayaan u faraxsanahay maanta. ma xusuusataa howlihii aan fasaxa u soo qaatay aabbe? howleed ka hadlaysaa? waad hilmaamtay sow maaha. waxaan fasax u soo qaatay inaan xaas helo aabbe. marka hadda aabbe, inaad walwasho looma baahna. mustaqbalka dhow waxaad arki doontaa carruur aan aniga aabbahood ahay, adigana aad awoowo tahay. soo maa garan aabbo? yaa aabbe, waxaan u malaynayey inaad ku farxi doonto warkaan markii aan kuu sheego, laakiin waxaad u muuqataa inaad ka cadhaysan tahay. maxaa jira aabbe? hagaag waan gartay runtii. waxaan rabay inaan kuu soo waco si aan uga sheekaysana arrimahan. haddaba waay kan aabbo, waan kuu imid. hadda ayaannu ka wada sheekaysan karnaa. teemin waynu haynaa. hagaag dhib ayaa jiro haddii waxyaabaha aan maqmaqlahay haddii ay sax yihiin. aabbo, oo maxaa jirana? gabadha waxay ka dhalatay reerka la heeb sooco. laakiin aabbo, waa gabar wanaagsan oo aad u fiican, akhlaaq iyo edabna ilaahay ugu dhammeeyey. horta gabadha waxay ka dhalatay reerka la heeb sooco soo maahan. maxaa ka micno ah? anigu uma malaynayo in diinta islaamka dadka ay kala socdo qabiil ahaan. waxaan aad ayaad oga yartahay cali runtii. ma fahmaysid. ragga waaweyn awqaasha ah hadalkooda dhegayso. odiga asagoo fadhiyo ayuu wuxuu ka aragti leeryahay wiilka dhallinyarada ah asagoo geedka saaran. waana xigmad. aabbo, maryamo waa gabar fiican, waadna ka heli doontaa haddii ay qoyskeena ku soo biirto. waana gabar akhlaaq iyo edab leh aabbo. cali, qabiilkaas gabar kama guursanaysid. hadalkaygana waa go'aankii ugu dambeeyey. mari iga daba hadli karta cali, ma garat? abshir, hooyadaa ha u sheegin arrinkani aabbe. way welweli doontaa haddii kale. laakiin habe, dadkaas ku tumayay ahaayeen. waxay haysteen qori soo ma ahayn. waxba ma ahan, imaysan tumayn ee waan isdagaalannay. soomaada arkeen feerka aan la dhacya aabbe. waxaan arkayay iyagoo suxun kuu garaacayeen aabbe. aniguba waan garaacayay aabbe. laakiin miyay ahaayeen? maxaad isku dagaalayseen? waxay ahaayeen tuugo xunxun. iska ilow kuwaas aabbe. ma soo laaban doonaan? maya, waxbaan ku dhigay. ma soo laabanayaan wiilkaygiyow. guriga aadna ina keen. waayahay aabe. abshir, ii ballanqaad inaad hooyada iyo walaasha u sheegaynin. waxaad tahay wiil weyn, ma u sheegi doontid wixii aad aragtay soo maahan? waayahay aabe. marka beeshu 3,000 ayay keeneen. runtii wax badan ayay hureen. haa, alla khayr ha siiyo. masjidkana $500 ayaan ka soo aruuriyey. ayuutadaydii iyo tii hooyo ceeblo $2,000 ayaa laga hayaa. maryam ayaa hadhow lacagta keenaysa. lacagta aan hayno isku darkeedu waa $5,500. 20,000 horta ma heli karnaaba, way badan tahay. wax kasta isku day ayay u baahan yihiin xaawakiin. isdeji. waan ogahay, wallaahi waa madax wareer. daahir naftiisa unbuu ka fakeray markuu tahriibaayey. baqaylku annaga oo dhan cadaab ayuuna marsiiyey. meel kastaa uu joogaba waan ogahay in tallaabada uu qaaday uu ka shallaynayo. haddana aabbe tabarba ma haayo, wadnihiisu aad ayuu u liitaa. alle ayaa jid noo bixin doona.
oo dhibkan oo dhan naga saari doona insha allah. aamiin dirir. bal sug xaawakiin aan lacag meelo kale ka raadiye. mahadsani dirir, waad ku mahadsan tahay garab istaaggaaga aad mar walbana la garab taagan tahay. adigaa mudan xaawakiin, meelna kuma kala harayno oo hawshan wayna wada qusaysaa annagoo dhan. aamina waan imid. imid abshirow orod hooyo lo'daas cunno u dhig. waxaan rabaa in ay caylaan oo caafimaad fiican ay helaan. mid baan rabaa inaan iibiye. waayahay hooyo. iib yaa yar sacana ayaan iibinayaa. wagar haddii aad teleefoonka qaban lahayd markaad dhowr mar ku soo wacayay waad ogaan lahayd qofka iibinaya saca. taleefonkii ayaa iga damay, ma sidaa daraaddeed ayaa u xanaaqsan tahay. xataa ma dareemi kartid ina aan dhutinayo. maxaad tidhi yaah marka maxaad la dhutinaysaa ood qabtaa? ma walaacaad iga walwalsan tahay ayaad ii weyddiinaysaa bise booliis dembiilo waraysanaya oo kale? jawaabta aad ka bixisid sababtaaad u dhutinaysid ayay ku xidhan tahaan ku idhaahda waxaan ku dhihi doono. marka aan bal eegno midda aan noqonaya xaaskaaga ama booliis anigu. markii aan guriga hooyo ka soo baxay ayaa tuugu isoo weerareen. meeshaas dhibkeeda ayaa iska badan. marmarsiyo fursad kale ayaan ku siiyey oo jawaab ani aad igu siin kartid waryaa joofle. maxaa runta ayaan kuu sheegayaa, maxaa been kaaga sheegaya adiga? waryaa i dhegayso, hooyada ayaan wacay waxayna i tiri caafimaadkayga cudurdaar kama dhigan karo joofle. ii sheeg waryaa meesha aad ku maqnayd ii sheeg. oma maxkamad ayaan saarnahay mar kale ii dabagelayo. waxaan ahay mas-uulka reerkan, cid aan wax u sheeganaya ma jiraan. mar hore ayaan kuu sheegay meesha aan jiray. aamin ama ha aaminin aday kuu taallaa. marfashka jaadka ayaan iska aadayaa, isaga ayaa maskaxda ku soo dejinayaa. warbax orod iska aad, anigana gurigayga ayaan maskaxda ku dejisanayaaye. orod awalba qayrlaawa ahayd. run ahaantii ma fahmaya dhibka ay leedahay haddii gabadhu ay reer kale ka soo jeedo. waa sida aan kuu sheegay, arrimahan waa wax kaa waaweyn, ma ahan wax aad fahmi kartid. waxaad ogaataa aniga gabadhaas inaan jecelahay. qof kaloo aan ayad ahayn oo aan guursan lahaana ma jirto. sideed ku ogaatay inuusan jirin qof kale aad guursan kartid? waayo gabadhaas qalbigayga ayaa raacsan, gabar kalena iima cuntamaysaba. cali, haddii uu dhibkaa haasto inaad hesho gabar kale aad guursato, aniga ayaa kaa caawinayo. waa inta aan taleefon diro keliya, kadib reer fiican oo sharaf leh noo qalmo ayaad helaysaa. waad mahadsantahay aabbo, laakiin aniguba waan garanayaa sidii aan ula imaan lahaa xaaskayga. waan kuu jeeda arrimahan maaha arrimo aad ku fiican tahay. wax aad fahmi kartidna maahan. waa go'aankayga ugu dambeeyey, gabadhaas ma guursanaysa anigaa ku dhahay. gabadhaas magaceedu waa maryama, waxayna kalkaaliso ka tahay xarunta caafimaadka ee degmada. waad ka heli doontaa aabba mar haddii aad la kulantaa gabadhaas. ee fursad sii oo aad kula kulanto si aad u ogaato wanaagga ay leedahay. waa qof aad u fiican aabbo. laakiin waxay ka soo jeedaa dadka la xanto. maxaan u jecelnaa waxyaabaha aanan beddeli karin inaan isku dayno inaan beddelno. qofka kuma xirna qabiilka uu ka soo jeedo. muhiimaddu waa inaan isfahannaa oo aan isjecelnahay. aabba ma og tahay xigmadda iyo cimriga inay mar wada yimaadaan. haddaad waaye sii joogto adiga ayaa fahmi doona waxaan aniga kaala hadlaya. kolley aabba adii hooye soo wada hadla, kadib ayaannu is arki doonnaa. waan daalay. intaan ka badan kama sii hadli karna arrimahaas. waxaan kuu sheegayaa inuu go'aankayga ugu dambeeyey inuu yahay cali. hadal lagu soo celceliyana ma jecli, waad og tahay. gabadhaas ma guursanaysid, waa go'aankayga ugu dambeeyey. min fadlan inaan nastaan rabaa, guriga iga bax, aan kaa nastay. abaalkaaga ma gudi karo maryam. fadlan dumarka kale ee ayuutada u sheeg sida qoyskeennu ay abaalka ugu hayaan. adigaa mudan, waa waxa ugu yar ee aan qaban karno. waxaan ilaahay ka baryaynaa in lacagta inta ka dhiman la helo si loo soo sii daayo daahir isaga oo nabad qaba. allaha noo aqbalo ducadaada. waan arkay in uu aabbe daawooyinkii ku soo roonaanaya xaawakiin. wuu nastay, laakiin maryan ma aqaanno waxa ku dhici doona haddii taleefoonka loo soo diro mar kale. ma jirtaa si aad uga fogeyn kartid taleefoonka si uusan mar dambe u qabanin? ma u malaynayo inuu yeeli doono. batariga ayuu dabka gashanayay si uusan taleefoonka uga demin oo uusan u gafin haddii la soo waco mar kale. si uun yeel oo taleefoonka ka qaad. cadaadiska dhiiggiisa wuu degan yahay hadda, waxaana sabab u ah daawada, laakiin weli wadnihiisu wuu tabar yar yahay. marka ma rabno war degdeg ah oo dhibaato u keeni kara isaga.
waan ku fahmay maryam middaas waan isku dayi doonaa waayahay marka aan shaqada gala haddeer mahadsanid saaxiib fiiri adiga iyo cali ma ku heshiiseen xilliga uu arooskiina dhici lahaa sidiisa oo kale ayaad u waalan tahay adigana maanta ayuu aabbihii u tegayey si uu ugala soo hadlo arrimaheenna waxaa la rabay inuu warbixin isoo siiyo laakiin weli ilama soo hadlin ilaa iyo haddeer waa qayr waxaa kuu roon inaa afaarahaaga ila soo socodsiisid alla abbaaya waxbaa ilay xaalku ma fiicna iyo in waalidiintiisu ay diidi doonaan guurkeenna sidaasaa dhihin maryam aamino warkeeda dhag ha u dhigin ka waran haddii ay diidaan oo sidaas darteed uusan ii soo wicin ilaa iyo haddeer waxaa laga yaabaa inuu mashquulsan yahay waan hubaa inuu ku soo wici doono ninkaasi saa'id ayuu kuu jecel yahay ee isdeji wuu ku soo wici doonaaye sidaas ayaan rajaynayaa hadhow baan is arki doonaa abbaayo nabaday joofle ugu dambayntii waad iskeentay ii waran mudane joofle marka ugu horreeya ee howlgal soo dhammaado halkan ayaa lagaa rabay oo xarun inoo ah ee adigu xaggee aadday middaas ma ogayn mudane waxaa lagaa rabay in dadka kale aad soo raacdid aaway qorigaygiina runtii arrintaasi ayaan halkan u imid anigu sheeko ma rabo ee qorigaygaysii ma taqaanaa warfaa midka fidmadowdaha ah ayaa isoo weeraray oo qorigii iga qaatay runta ma kuu sheegaa anigu sheeko niyad uma hayo haddii uu warfaa qoriga kaa qaatay aniga howl ii taalla taas ma ahan qorigaygii ayaan rabaa wuu i garaacay wuxuuna ii sheegay inaadan lacagtiisa siin uu qorigii iibsan doono si uu lacagtiisa uga helo oo ma waxaad rabtaa inaan sheekadaas kaa aamin aniga waxaan aaminsanahay in adigu aad qorshaysay oo aad iibsatay qorigayga si aad aniga iigu dhibaataysid mudane aniga qof noocaasa ma ihi wax ma xado warkaas waxaa i dhahayaa nin hadda badda ka yimid oo raadinayay markab uu bulilqaysto joofle saaxiibbo ma nihin ani adiga may maqashaa haa mudane marka orod oo qorigaygii aniga ii keen haddii kale sida aan feer kugu wado ayaan ilkaha oo dhan kaa soo daadinayaa si aad jaadka subag ahaan ugu cuntid sababtoo ah wax ilka ah oo kuu haray oo jaad aad ku ruugtidba ma heli doontidba warkaygu ma cad yahay oo may maqashaa mise haa mudane haa war wejigayga ka dhaqaaq wejigaaga ha gubtee hibo waxaan ka fekerayey inaan bandhig faneed qabanno si aan lacag ugu aruurino daahir sheekh rooble waa macquul dirir laakiin si uu bandhig ugu guulaysto waa in horay loo qorsheeyaa oo suuqgeyn loo sameeyaa xilli hore fannaaniintuna waa inay isi sii diyaariyaan macnaha wakhtigaas wakhtigaasna ma hayno ogow magafayaasha wakhti ma lagala hadli karaa maya iyagu ganacsi ayay ku jiraan waa ganacsi wuxuushnimo ah bal sug aan taageero ka raadiye fannaaniinta mahadsanid hibo adiga ayaan kaa war sugayaa adaa mudan dirir hooyo wayba fiican tahay haddaad iga soo horbaxday waan doonayey inaan ku arko aan kula hadlo sidee tahay cali haye adiga aabbaha maxaad isdhahdeen waan fiicanahay hooyo alxamdulilaah laakiin aniga aabbo hadalladiina soo dhex maray mid gul ku soo dhammaada muun ahayn oo maxaad filaysa adiga waxaan rajaynayaa inaad si fiican u dhegaysatid waxa uu kuu sheega aabbaha oo aad raaci doontid waa sax hooyo laakiin maryamo waan jecelahay inaad la kulantaan aad baan u jeclaan lahaa hooyo cali mii maqlaysaa lagama yaabo inaan maryan la kulmo sababtoo ah waxay ka soo jeeddaa qabiilada lahayb sooco middaana waa mid soo jireen ah ma doonaya inaan ku doodno aniga adiga
laakiin hooyo diinta xaggee kaga qoran tahay in qabiil laysku heebsooco beesheennu ma oggola reerka aad ka rabtid inaad ka guursato sababtoo ah isma geyno oo marka hadda hooyo qabiilka miyaan dhegtu u raaricnaa oo waxaynu ka wareegnaa waxa ay diinta islaamku qabto waryaa iga jooji hadalka badan orodoo culumaa u diinka u tagoo la soo dood anigu culummo maahiye waan ku baryayaa hal mar oo keliya fursad ii sii maryamo waxay noqon doontaa gabar adig ku anfacda aniga iyo ubadkayganna anfacda waryaa ma jecel ayaa ku dhaga tiray waxa aan kuu sheegaayo intaad dhegta bidix gelisid ayaad midda midig ka bixinaysaa miyaa waxaad ii soo wacayaa waa maryamo waxay doonaysaa inay ogaato wixii aanu ku wada hadalnay aniga waalidiinteeda waxna uma sheegi karo waayo wixii aan idinka filinaya adii aabbo ma idinka arkin ka qabo teleefoonka oo u sheeg siday wax u jiraan laakiin hooyo mar walba waxaad ogaataa inaan ka raja dhigi doonin arrinkan wallaahi aabbaha go'aankiisa ma beddeli doono aniguna waa sidoo kale rajada beenta ah ee aad ku abuuraysid gabadha ka daa guurkaas ma dhici doono hooyo laakiin waxaad ogaataa jaceylka aan maryamo u qabo inuu yahay mid dhaba oo aan marnaba ka jeesan doonin aniguba jaceylka hooyanimo ee aan kuu qabo waa mid dhab ah ee waxaa kuu roon inaad imaqashaa oo aadan hadhow madax xanuun ii keenin bal hooy waaya hadhow baynu is arkaynaa wallaahi waa yaab waxaan maqli jiray qofkuu jaceylku si dhab u qabto wuu indha tiraa taasi waa run wiilkaygii aanba uga jeedaa jaceyl dartii ayuu god dheer ugu dhici rabaa aabe waxaan u malaynayay inaa hurudid sariirta ayaan ku daalay aabbo balaan jimicsado xaaji xoogaa boorisha ma kuu keenaa hadda ma rabo fadlan mahadsanid xaawakiin meeqa lacagaha ayaa noo suuro gashay inaan ururino aabbo middaas ha ka welwelin aabbe si fiican ayaan hawsha u wadnaa dumarkii ayuutada lacagtii ayay keeneen beeshana sidoo kale waxbay keeneen xoogaa lacagoo kalena masaajidka ayaa laga keenay wakhti yar gudahooda ayaan lacagta ku wada helaynaa haddii alla idmo aabbe keen taleefanka aan qabtee yaa soo wacaya waa lambarkii aan la arki karin allah haddana maxay rabaan sameecadda furcan maqla waxa la sheegaye bannaanka ayaan kula soo hadlayaa aabba kurbo uma baahnid waan ka qabanayaa xaawokiin aabba u kaad anigaa ka qabanaya halow ma sheekh roobla ayaa ila hadlaya haa maandhow sheekh rooblaa kula hadlaya lacagtii diyaar miya adeer wax yar ayaa nooga haray ururinta lacagtii wax yar ayaa nooga haray micno ma samaynayso wakhti kugu filan ayaan ku siiyey adeer waan ku baryayaa intii karaankeenna ah waannu dadaalaynaa ee bal noo kaadiya waayahay waxaan u malaynayaa adiga iyo qoyskaaga ma dadaalaysaan bal sug aan dadaalkiinna wax ku daray allahayo lugtu iga doogtay alla daahirow alla wiilkaygii alla lacagta waa laydiin keenayaaye wiilkayga dilina waxaan filayaa inaad hadda dadaalka kordhin doontaan si aad lacagta u heshaan 24 saac keliya ayaad haysataan keena $20,000 haddii kale marka xigta il ayaan ka soo tuuraynaa alla gacanta alla wadnaa alla rabbiyaa waxaan u malaynayaa aabba inuu wadna xanuun haayo ashhadu an laa saxanka nolosha taasi waxay ahayd xalqad cajiib ah magafayaashu waxay dhibaato culus ku hayaan qoyska shiiqa nolosha iyo caafimaadka shiiqa ayaa halis ku jira xaaladda reerku way sii cakirmaysaa cebla uma sii dulqaadan doonto xaawakiin tan ayay salka ku haysaa su'aasheenna maanta cebla waxay rabtaa inay xaawakiin u laabato mooge si uu mooge u bixiyo lacagta madax furashada ah ay u baahan yihiin reerku ma u malaynaysaa in xaawakiin ay waajib ku tahay inay u laabato mooge si ay u badbaadiso qoyskeeda ma u malaynaysaa in xaawakiin ay waajib ku tahay inay u laabato mooge si ay u badbaadiso qoyskeeda waxaan jeclaan lahayn inaan maqalno fikirkaaga fadlan fariin qoraal gaaban noogu soo dir nambarka 354 waa nambarka 354 adigoo ku bilaabaya magacaaga iyo meesha aad joogtid waa inoo iyo toddobaadka soo socda iyo isla xilligan nabadgelyo saxan saxa u dooniyo